shaqada warbaahintu kaliya kuma koobna gudbinta xaqiiqda qarsoon ee waa iftiinka u baxa bulsho waqti kasta oo waayihiisa xambaarsan. Waryuhuna waa gudbiyaha gaarsiiya meel fog. magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee Somaliland waxaa ka howlgala tiro ku dhawaad 40 wariye oo wararka u kala dira goobo kala duwan, haba u badnaadaan TV-yada oo Soomaaliga ku hadla marka laga reebo tiro kooban oo ka howlgala idaacadda kaliya ee ku hadasha afka dawladda ee Radio Hargeysa. marxalado kala duwan oo ay soo martay warbaahinta Burco waxaa ka mid ahaa waqti ay koobnaayeen wariyaashu iyo warbaahinta noocyada kala duwan. iminka oo ay ka duwan tahay waxaa jira xarumo gaar ah wariyaasha oo ay ku fuliyaan hawlahooda warbaahineed iyo sare u kaca xagga tiknoolajiyadda. weli haddana waxaa jira caqabado hortaagan wariyaasha sida kuwa ka haysta dhanka shaqada iyo kuwa kale oo la xiriira khibradda suxufi leeyahay. waxaa jirta dunuufo u gaara warbaahinta siiba kuwa gobolada marka la eego warbaahintu waxay ku shaqeysaa waayo arag adag iyo dunuufo qalafsan. waxaa ka mid ah dunuufahaasi warbaahinta qofku marka uu warbaahinta maxay talo uu gacanta ku hayo ma jiro institution-ka uu shaqeynayo wax xuquuq ah oo gabi ahaanba uu ku leeyahay. magac mooye uu qofkaasi tabcado isagu isa soo saaro mooye wax kale oo ku qaba runtii ma jirto. mushahar la'aanta ayaa ku kaliftay wariyaasha inay qaataan qabaxda oo ah lacag lagu bixiyo warka kaas oo siyaasi ama qof kale uu iibinayo fikir uu leeyahay, waxaana ilaha kaliya ee wararkaasi ay ku sii hadhan yihiin xarumaha dawladda oo inta badan fariisin oo ah wariyaashaas maadaama TV-yadu ay u baahan yihiin lacag laga sameeyo wararkaas. suxufiyiintu ay ku koobnaadaan waxa la yiraahdo business news oo saxaafadda ay tagahan ka baxsan hase ahaatee ay sababtay dhaqaale darrida ka jirta dhulka geeska Afrika guud ahaantii, taasoo halkii institution-ku ka kafaalo qaadi lahaa wariyaha u shaqeynaya inay dhacdo warka laftarkiisa in laga dhigo business, taasoo lagu oranayo warka waa inaad ka soo qaadaa $150 ama wax la mid ah. waxaa run ah oo xaqiiq ah inay caqabado badan haystaan wariyaasha ama xirfadda saxaafadda ku shaqeeya ee gobolka Togdheer iyo guud ahaan dhulka Soomaalida. ma jiraan wax xuquuq ah ama mushaharaad ay ka qaataan TV-yada ay u shaqeeyaan. mararka laga tago warar ayagu business oo ay sameeyaan oo lacagta ay qaybo kamid ay u diraan qaybana ay qaataan. ururada ay ku midaysan yihiin suxufiyiinta ka howlgala Somaliland ma aha kuwa si toos ah uga howlgala gudaha Burco, iyadoona suxufiyiintu baahi weyn u qabaan tababaro iyo aqoon ay helaan maadaama oo aanay jirin meel lagu bixiyo aqoonta saxaafadda. urur suxufiyiinta Soomaaliya tala saxaafadda Somaliland kaasi ma guto ama ma qabto roolkii saxaafadda ee laga rabay. maxay haytay waana mid meesha ka baxday oo waxaan oran karnaa baba soo dhaafo magaalada caasimadda ah ee Hargeysa. mas'uuliyiintuna wuxuu noqday meel ay iyagu ku shaqeystaan isla markaana ay cunaan dhididka suxufiyiinta iyo maxay haytay waxyaabaha loogu talagalay in lagu horumariyo noloshooda kala duwan haddii ay tahay dadka kuwa aqoonta tabaya. wariyihii oo aan haysan tababar maadaama isagoo ku jira markuu ku jiro howlaha shaqada isagoo aan adeegsanayn qababkii ama xirfadii warbaahinta caadiga ama qaabkii shaqada aan u qaadanayn laakiin sifooyin khaldan u isticmaalaya, taasaa la odhan karaa wariyihii markaanu helin tababaro buuxa taasaa ku kalifaysa inuu khaladaado badan galo. isku xidhnaan la'aan jirta ayay aaminsan yihiin qaar ka mid ah wariyaashu inay horseeday inay warbaahinta Togdheer noqoto midda dhabarka u ridata wax kasta oo dhiba sida tacadiye loo geysto waqtiyada qaar. haddii aan ka hadlo arrinta tacadiga ay warbaahintu la kulanto maaha tacadi lasoo koobi karayo. hadday tahay bulshada u shaqeynayaan iyo hadday tahay dowladaba. warbixintan aad arkaysaan ee bulshada loo soo bandhigayo waxay ku timaadaa dhibaato iyo meelo aanu shakhsigu ka soo saari karin ayuu wariyuhu ka soo saaray isagu. haddii ay warbaahintu ay wada joogi lahayd way ka gaashaaman lahayd dhibaatooyin fara badan oo hor leh oo soo food saari lahaayada. tirada wariyaasha oo sii kordhaysa waxaa barbar socda hoos u dhac tayada warbaahinta oo aanay jirin xakameyn iyo maareyn xagga xukuumadda Somaliland, iyadoona warbaahintu tahay awoodda kaliya ee haddii ay hagaagto horumar tis qaadi karo.
marka laga yimaado caqabadaha hortaagan kuwa ka howlgala warbaahinta gobolka togdheer yoolkooda ayaa ah in dhabtu ay muraayad u noqoto waddankooda. Sakariye Ilyas Jakarta, warbaahinta Star, Burco.